فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. nabadgelyo aad baan idin salaamaya dhammaantiin sharafi korkiina ha ahaato ramadaan kariim waa qisooyinkeenii ka koobnaa waxaa miiska inoo saara rabbi hadduu qadaro taariikhda cumar bin khadaab waa khaliifkii labaad ee islaamka waxa uu ku dhashay kuna barbaray maka cumar waxa uu dhashay 13 sano kadib dhacdadii caamul fiil taasoo caddaynaysa ama ka dhigan in uu cumar rasuulka ka yar yahay 13 sano hooyadii waxaa la yiraahdaa xantamata binti haashim bin mughira oo waxay la dhalatay abu jahal cumar wuxuu ahaa mid geela raaca yaraantiisa wuxuuna ku soo barbaaray dad jaahiliin dhexdooda cumar wuu weynaaday wuxuuna ka mid noqday dadkii ugu sharafta badnaa uguna kartida badnaa ee quraysh kadib markii la soo saaray rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo ay bilaabatay fidinta diinta islaamka cumar isla markiiba muusan islaamin oo muslimnimadiisu dib ayay u dhacday cumar waxa uu ahaa shakhsi aad u dhiba islaamka heer uu gaaray cadowtinimada uu islaamka u qabo in uu muslimiinta zaid u garaaco ama qofkii looga shakiyo inuu islaam yahay cumar wuxuu dhaga adkaadaba waxa uu muslimiinta dhibaba ugu dambayn waa uu islaamay cumar oo hidaayadii rabbi baa ku toosiyay cumar waxa uu islaamay kadib hijrooshadii muslimiinta ay u hijroodeen xabasha iyadoo hijradaas muslimiinta ay ku maqan yihiin ayay islaamnimadiisu ahayd waxayna ahayd sanadii 6aad ee soo saarida nabiga sallallahu alayhi wasallam kadib markuu cumar soo islaamay waxaa awood iyo quwad yeeshay awoodii islaamka cumar waxa uu yiri waxaynu haysanaa haday xaq tahay maxaynu ka baqaynaa maynu kor u qaadno ashahaadka oo aan tusno ummadda in diintaynu ay xaq tahay cumar waxaa lagu sifeeyaa inuu ahaa mid geesi ah caaqil ah garaad badan xaqa jecel gaalada dhankooda u adag muslimiinta kuwa aan qalad lahayna u jilcan cumar waxaa lagu sifeeyaa inuu ahaa mid jismi cad aad u xoog badan waxaana la yiraahdaa waxa uu ahaa qofkii labaad ee ugu darajo sareeyay asxaabta oo dhan waxa uu ka mid ahaa 10kii iyaga oo nool jannada loogu bishaareeyay cumar wuxuu noqday khaliifkii labaad ee islaamka kadib geeridii abubakar as-siddiq waa uu hogaamiyay islaamkii si qurux badan ayuuna u hogaamiyay ay ku dhisan tahay daacadnimo iyo cabsi alle cumar waa uu ka khustay raaxa adduun oo dhan waxaa la yiraahdaa wuxuu dhihi jiray maalinkii ma nasan karo oo waajibka ummadda ayaa korkeyga ah habeenkiina ma nasan karo sababtoo ah inaan ilaahay raali geliyo ayaa korkeyga ahaatay cumar isagoo nool baa janno loogu bishaareeyay alla ayaana ka raali noqday cumar islaamkii wuu xoojiyay iyadoo aysan jirin wax khilaafaad ah cumar waxa uu ahaa mid ka mid ah saaxiibadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo dadkii ugu dhawaa iyo dadku rasuulka la tashay geeridii cumar bin khadaab waxay ahayd xilli lagu guda jiro salaadii subaxay cumar isagoo salaada dujinaya ayaa waxaa soo galay abu lu'lu al-majuus waxa uu ahaa adoon uu lahaa mughira ibn shu'ba abu lu'lu wuxuu ka soo jeeday dhankaas ee iiraan wuxuu ahaa farsamayaqaan biraha tuma wuxuu soo tuntay mindi labada dhinac af kale salaadii ayuu soo dhex jiiray kadib cumar buu u yimid mindidii buu dhinac ka geliyay dhinaca kale ayuuna uga bixiyay isagoo imaamaha cumar meeshii ayuu ku dhacay abu lu'lu kama uusan dambeeyin isagana isla meeshii ayuu ku dhintay isagana gacantiisa isku dilay sidaas bay ahayd geeridii geesigii islaamka cumar bin khadaab isaga waa geesi waa boqor waa caalim waa zaahid alla ayaana ka raali noqday intaas bay ahayd qisadii koobneed ee cumar bin khadaab waa amiirkii mu'miniinta عمر بن الخطاب